السلام عليكم كسو دواذا بودكاستيغا sheekooyin mar walbo ilmo cusub aa raacaysiin ayakoo waxyaal kala duwan marooyin waxaa rajaynaana inaa mar walbo wax cusub ka baratiin. markii koowaad Soomaali aadayo Yuusuf maalmaha u hereen oo tirinay ilaa intii la gaarayo maalinta aweediisa u tagi lahaay. Yuusuf af Soomaaliga ma dhiweenin laakiin weli wuu walwalsanaay. dadka meeshaas ma fahmi rawaan oo isdhahay. Yuusuf iyo waalidiintiisa Hargeysa gaareen ayay Safiya abalaanka ku sugeysay. kusoo dhawaaw macaano kusoo dhawaaw ayay dhahday. maalinta ku xig Yuusuf muxuu maqlay cod ilmo balaanka ku ciyaarayaan. Yuusuf banoonigii soo qaatay muxuuna rabay inuu ilmahaas u la ciyaaro. السلام عليكم من العياري كرا يوسف dhahay. ilmihii way fiiriyeen waana u qosleen. kubad ma doonaysaa ilmihii dhaheen. Yuusuf ma fahmin waxay dhaheen laakiin banoonigiisoo farta ku taagay. kadib Yuusuf muxuu go'aansaday inuu u tago oo la ciyaaro. markaasay tibo Yuusuf wuu soo bartay inay kubad banooni laga wado. markuu guriga ku noqday Yuusuf hooyadiisa u sheegay wixii dhacay. markaasay hooyo iyo ayeebo waxay u sheegeen inuu lahjadyaal kala duwan jirto laakiin weli isku luqad leeyahay. waxaasay maxaa dhahaa lahjad. hooyo maxay u sii sheegtay inuu jiro lahjadyaal aad u badan Soomaali dhexdeeda. reer Hargeysa si u hadlaan, dadka reer Boros kale u hadlaan, waxaa jira xataa reer Fakhay iyo reer Marko iyo dadna maxay ku hadlaan lahjada afmaamayga. maalintii ku xig Yuusuf mar labaadoo ilmihii u tagay. markii ay ciyaarayeen sida ay u hadlaayeen oo si fiican u dhageysanayay. marmar wuu fahmayay waxay dhahayaan marmarna ma fahmeenin. tartiibna muxuu arkay inay isku erayaal isticmaalayaan laakiin si kala duwan inay u dhahooyaan. erayaal qaarna way kala duwan yihiin sida kubad iyo banooni camal. markuu ilmaha ka soo tagayay Yuusuf muxuu dhahay ciyaar wacan. ilmihii dhan way u qosleen. maalmaha qaarna Yuusuf ayeediisa dukaanka u raacay. ayeediisa lahjad si fiican u baratay. dadkii dhan way fahmayeen waxa iida dhahaysay. asina markaaseeti erayaal cusub badan oo soo bartay. magacayaasha khudaarta, nambarada sida ay u dhahayeen iyo xataa dadka sida isku salaamayeen. wuu ka dubnay wuxuu asi u bartay. maalmaha ka mid ah Yuusuf ayeediisa waxa u raacay dukaan buugyaal loo gadayo. buugyaashii fiirinayeen. Yuusuf af Soomaali akhriskiisa wuu ka saay laakiin weligiisa buug oo af Soomaali ku qoran ma dhammaystirin akhriskiisa. Yuusuf iyo ayeediisa buugyaasha ay fiirinayeen. kadib halkoo buug oo soo qabsaday. ayeediisa markaasay maxay u sheegtay in oo luqadda la qoraayo ka duwan tahay luqadda oo lagu hadlaayo. lahjadyaashaani dhan kala duwan oo ka hadalni ee u dhaxaysa. maalmihii soo socdeen maalin walbo Yuusuf hal buug oo akhrinay. bilaawkii wuu ku adkaay. tartiib oo akhrinay. hooyana way u saxaysay markuu akhrinay. maalmihii u dambeysay akhriskiisa caawimaad dhan u baahneen. wax walba wuu fahmay. Yuusuf af Soomaaliga aad u sii jeclaaday. lahjadiisa bis lama ahayn laakiin lahjadaha kala duwan iyo dhaqanayaasha kala duwan waxay dareensiisay inay Soomaali mar walbo meel gaar u la ahaanayso. maxaa rajaynaa inay xalqadaanid ka faa'iidaysateen. hadda kadibna xalqad walbo
maxaa ula socda warqado oo soo degsi kartiin oo ku saabsan wixii xalqada laga hadlayay. waxaasna maxaa ka heli kartiin Instagram-ka sheekooyin af Soomaali.